أفرجلو ويدي وهيا هدو أفرجلو ويدي وهيا أبكما أغهدي إدكما أدري شيء والبكول هذا عدا هدو أفرجلو ويدي وهيا هدو أفرجلو ويدي وهيا أبكما أغهدي إدكما أدري شيء والبكول هذا عدا عبد الله الشريف باستو بل waxaad noqon على taariikhda heestaasi eedu xilligii aad ku luqaysay iyo sidii ay kugu soo gashay waxa sameeyay abwaanka Cabdirashiid Nuur Cabay Allah u naxariistay wuxuu u sameeyay yar saaxiibkiisa oo garcadal lahayo marka yarkaas eedu kursi marka yarkaas uu sameeyay heesti asaa qaadi jiray ka bacdi ana uu wareejiyay heesti sidaas heesti ku qaaday sidii aan hobladu waa bari ah martii kaga noqday heesaha hergelay 76 markaas ayaan qaaday heestaasi eedu waa hees dad badan oo eedu kuraysa markay maqlaan dareenkooda wax ka bedasho aad u qeyro badan isla markaasina aad uga hadlaysid cadawtinimada eedooyinka qaarkood ay u qabaan ilmaha ragooda dhaleen ee hooyinkood la soo furay bal dib hadaad u jaleecdid ninkaas heesta loo sameeyay xaalkiisu sidee ahaa والله حالكيس آذو وليتي مركز قرعدة مركز ساوى تاكليجر أسيق عبد الرشيد الله نحرسته عيال أورفن وهاجري مركز والله وحي تاشين سكرت واحد كل أي وكين جري مركز سيدي صاحب نقدان مركز الحمد لله هذا قرعدة هي شو واتهاي أبوان عبد الرشيد الله نحرسته يا قرعدة أو عنك هست لو سميي موحي أهاين ضد اسكو كليتشا موحي أهاين ضد اسكو دقة أو ظروفته اسكو موقته حريرك كده هي درين كودو انتو جري ودد اسكو دابي ahayn daruufto isku muuqato dad aad isku jecelna waa ahayn oo walaalo amal ay wallahi la kala garanin abwaanka heestan alifay maxaa uga muuqday oo taadi ah ama dacdar ah oo la aamusu waayo ku xambaaray heestan aad ku qiimaha badan inuu alifo waxa xanuunka keenay markaas heesta ee deerka xanuunka dhibka ninkaas oo haayo oo saaxiibkiisa walaalkii ah marka xanuunka oo haayo uu la adkaysan waayay ayuu heestaas ku keenay markaas ka bacdi heestaas waxay noqotay hees caan baxday bal adigu fanaan ahaan dareenkaaga markaad fiirisid maadaama heestaasi aad in badan qaaday isla markaasna dad badan ay jawaab ka bixiyeen dad badanna ay dareenkooda ku cabireen maxaad ka kororsatay heesta waa hees oo dhibka oo ay ka hadlayso eedada ay ka hadlayso maartay ninka oo wiilka yar oo maartay oo hooyada haysanin oo si xun oo la dhaqmaysa eedo fiicanna waa jirtaa eed xunna waa jirtaa marka eediyaasha xun waxaan leeyahay heestaas aad iyo aad bay maartay ay u dhiftay marka waa hees dareenkayga maartay aad aan u jeclahay way hees ما إلى علينيسي إشيكوغو كتايو أفريكا على ديرتا إشيكوغو كتايو أفريكا على ديرتا إيدان ليابي أحكي إدو دارهانا إستني ما هذا كوني مو ما إلى علينيسي إشيكوغو كتايو أفريكا على ديرتا إشيكوغو كتايو أفريكا على ديرتا أكو مسارتو أرحلو إلي وحي اتراهدا أكو مسارتو أرحلو إلي وحي اتراهدا لقد كان محدقي أكتيدا أكو مسارتو أرحلو إلي وحي اتراهدا أكو مسارتو أرحلو إلي وحي اتراهدا لقد كان محدقي أكتيدا هدو أفرجلو ويدي وهيا هدو أفرجلو ويدي وهيا أبكما
kuma ogahadi cidda kuma dareeshe walbay kula hadhacda hadduu afar jiru hooyadii wahaya hadduu afar jiru hooyadii wahaya abba kuma ogahadi cidda kuma dareeshe walbay kula hadhacda cabdulaahiyow heestaasi waxay ka mid tahay heestaha aadka aan u daneeyo marka la dhegaystana waxaa la dareemayaa in adigu ruuxa sida aad u qaaday ay tahay si dareen muglihi ka dhadhamayo adiguba waxaad ahayd eedda koris mise hooyadaabaa kusoo korisay aniga hooyadayba isoo korisay eedda koris ma aha jirin laakiin dareenka markii oon arko maarta heesta inay hees oo qiiro la waayo marka sidii heesta aheed ayaan u qaaday heesta waana aniga eedda koris ma ahan hooyaday ay soo korisay aniga cunuga ay taabanaysa aniga isku halbaannahay marka inaan muujiyo oon maaragtay oon dareenkeeda heesta see ay tahay aan u qaado marka waa mid oo isiinaya damiirkayga in cunuga yarkaa saas loo cadibayo iyo aniga inaan isku halnahay waa tahay maxaad ugu baaqi lahayd waalidiinta laga yaabo inay ku dhagaysanayeen oo bad dhex yaallo islamarkaasina khilaaf inuu u dhexeeya laga yaabo waxaan dhihi lahaa markii cunugaas meesha cunugiya ku baaba'ayo hooyadiis iyo aabiis markay kala tagaan markii laba maroodi meesha isku gasho coos baa ku dhib qabo marka cunugaas yar in loo daneeyaa fiican oo aabbaha isku dulqaato iyo hooyadan iyadana hadday dhib ku jirta ay iska dulqaadato marka cunugaas sidii oo mustaqbalkiisii oo loo dhisi lahaa marka haddii oo aabbihiina ka tago cunugii oo hooyadiina oo maaragtay qof uu haysto maanta noloshii oo fiicneed ma galayo aadinaad kuwaadiyo awdaha aad u heli karin ado oo ku hayo italkaa agu daran yahay oo ilaa xareed badan indhuhu ay muuqdaan markaad oysa leelkii hooyaha ku adeegtee markaad oysa leelkii hooyaha ku adeegtee guur dabcayse amuskugu tiraahadee markaad oysa leelkii hooyaha ku adeegtee markaad oysa leelkii hooyaha ku adeegtee guur dabcayse amuskugu tiraahadee wil hadduu afar jiru hooyadii wahaya wil hadduu afar jiru hooyadii wahaya abba kuma ogahade cidda kuma dareeshe walbay kula hadhacdaa wil hadduu afar jiru hooyadii wahaya abba kuma ogahade cidda kuma dareeshe walbay kula hadhacdaa